وادين مهد علنا يا شغلة وناكسن أتقبتين حقيقة واحد أبورتين وضنيات عصب يا أبورتين oo guri walba oo Soomaaliyeed laga dareemay oo guri walba oo Soomaaliyeed calanka buluuga ah oo xidigta shanta geesood leh guri walba oo Soomaaliyeed lagu hayay macnaha waxaan ka leenahay waxay tahay ilmaha yar ku koraya maxaa moodaan marka wadaniid waa intaas qofka markuu uu ku expose garoobo markuu yar yahay ama environmentiga bee'adu ku nool yahay u arko wax aad u sareeya oo qaran iyo wadaniyad ah khasbiyan ilmahaasi markay koraan waa garanayna meeshii aadayaan hadduu gurigaas guri ku koro uu yahay guri calanka lagu jeexjeexayo dhibaato iyo qabyaalad iyo balaayo iyo looga shaqeynayana dee khasbiyan ilmahaasi ma wanaagsananayo marka waxaan u nahay aasaas inaan dib u soo nooleenno qiimihii iyo wanaaggii ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeyay oo astaanta qaranka ahay marka runtii waa hawl noo bilaabatay waan idinku ammaanayaa shaqadii aad qabateen sida u qaban qaabiseen xafladihii quruxda badnaa 59 guuradii ee ka soo wareegtay maalintii gobolada waqooyi ee Soomaaliyeed xorriyadda qaateen 26 Juun iyo 1 Julaayo oo maalintii koonfurta ay qaatay xorriyadda iyo Israaci iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed sida aan u weynaynay quruxdeedii iyo qiiradii shacabka iyo guud ahaan farxaddii ummadda Soomaaliyeed kulli meel walba ay runtii aan ka arkaynay ee muuqatay hadday tahay gudaha dalka iyo hadday tahay dibaddiisaba waxay ila tahay waxa weeye waa dhaqan cusub waxaan aaminsanahay muddooyinkii burburka ahaa la soo maray haddii dadku dhibaatooyin kale iska haysay waxyaabo kale lagu mashquulsanaa waxyaabaha aan isaga mid ka nahay lama qiimeynin waxyaabaha naga halaabana waxa weeye waxyaabaha aan ku kala duwannahay yaan xoojinaynay oo aan jirinba laakiin waxyaabaha aan isaga mid ka nahay oo aan ka midaysannahay waa la iloobi marka runtii 1 Luulyo iyo 26 Juun waa astaan qaran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka dhaxayso oo ay tahay inaan weyneyno inaan qurxinno in meel walba oo Soomaaliya ay joogto ay ka dhigto wiigaas xorriyadda aan ugu magac darnay ogtihiin sanadka soo socda waxaan gelaynaa 60 guuradii waa 60 jirsanay macnaheedu waxay tahay inay tahay inaan weyneyno oo maanta tii aan sameynay aan 3 jibaar iyo 4 jibaar aan ka sii weyneyno si taas loo sameeyana hawsheeda iyo qabanqaabadeedu waa inay hadda bilaabato oo idinkuna aad tihiin guddigii ka shaqeynayay inaan isu diyaarinno 60 guuradaas Soomaaliya oo dhanna meel kastana aan ka dhigno hadduu Ilaahay yiraahdo dadka dibadaha jooga ay ugu horeeyaan safaaradaha noo joogana ay qabanqaabiyaan oo iyagu hormood ka noqdaan oo qof walba oo Soomaali ah hadduu yahay caruur iyo hadduu yahay ciroole isku si loogu dabaaldego